Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo hadal ka jeediyay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka ayaa waxa uu soo hadal qaaday arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda guud ee waddanka. Xamse Cabdi Barre ayaa u nasteexiyay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo kula taliyay in dadka Soomaaliyeed ee lagu dhibaateeyay xukunkiisii uu cafis weydiisto inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaanka. Inkastoo magaca Farmaajo uusan carabkiisa ku dhifan, haddana Xamse Cabdi Barre waxa uu soo tiriyay qaar ka mid ah gabadhfalladii ay geysatay dowladdii Farmaajo, isagoo wax lala yaabo ku tilmaamay sida uu weli iskula saxan yahay madaxweynihii hore ee dalka. Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in muddadii ay raggaasi Farmaajo xukunka joogeen ay dalka ka geysteen jariimooyin. Uu ka xusay in madaxdii hore ee dalka shil diyaaradeed loo qorsheeyay in kabaha lagu aasay dad la laayay oo dabcan uu kala jeeday askartii lagu laayay guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. sidoo kale Xamse ayaa sheegay in xilligaasi la waayay muwaadiniin Soomaaliyeed oo haween ay ku jireen oo ula jeeday Ekraan Taaliil in la cunaqabateeyay oo dhiigbax iyo gaajo loo dilay. dadkii ku noolaa gobollada dalka qaar ka mid ah oo ula jeeday Gado iyo Jubbooyinka oo ay cunaqabatayn saartay dowladdii madaxweyne Farmaajo. waxyaabahaasoo dhan waa dhaawacyo aad geysateen haddiiba aad nasiib u yeelateen in idinkoo nool aad dalka dib ugu soo laabateen. iyadoo lagu jiro bisha barakeysan waxaa idin fiicnayd in aad dib u dhaydaan dhibaatooyinkaas aad geysateen oo dadkiina cafis weydiisataan. waa haddii aad ummadda rajo dambe ka qabtaan in wixii aad geysatay aad hilmaamto oo hadda aad wax sii qasto. runtii ma qurux badna. marka waxaan soo jeedinayaa in kooxdaasi ay cafis weydiistaan ummadda Soomaaliyeed, ayuu sheegay Xamse Cabdi Barre. Ra'iisul Wasaaraha oo hadalkani ka jeediyay kulan ciwaankiisu ahaa afur wadareedka is-aragga xukuumadda iyo bulshada ayaa dhinaca kale ka hadlay arrinta muranka badan uu ka taagan yahay ee dhammaystirka dastuurka dalka, isagoo sheegay in dastuurku haatan ku jiro gacan aamin ah. Ra'iisul Wasaaraha waxa uu sheegay in dastuurku ku jiro gacan la hubo oo aamin ah. qof kasta meel ayuu ka danaynayaa dastuurka, laakiin waxaan idin leeyahay qof kasta shaqadiisa ha loo daayo dhammaystirkiisa. waxa uu ku xiran yahay karaamada iyo dowladnimada qof kasta oo xil idinka raba. dastuurka ayaan dhammaynayaa, balse maantay iyagii ayaa diidan dhammaystirkiisa, sida uu sheegay Ra'iisul Wasaaraha. Xamse ayaa soo hadal qaaday doodda haweenka oo maalmahani dalbanayay in dastuurka lagu caddeeyo oo qodob dhan laga dhigo qoondada haweenka oo 30% ah, isagoo sheegay in gabdhaha Soomaaliyeed ay xukuumaddiisu u ogoshahay wax kastoo ay dalbanayaan, isagoo haweenka kula taliyay in hanaan sharci ah ay xuquuqdooda ku raadsadaan oo buuqana ka fogaadaan. hadalka Xamse Cabdi Barre ayaana ku soo aaday saacado uun kadib markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Xasan Sheekh Maxamuud uu isaga qudhiisu jeediyay hadalla kulul oo ka dhana madaxdii hore ee dalka sida Farmaajo iyo Sheekh Shariif. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeedinayay masaajidka madaxtooyada ayaa si adag uga hadlay xiisadda ka dhalatay wax ka beddelka dastuurka. madaxweynaha oo weli ku dhagan qorshihiisa dastuurka ayaa marka hore sheegay in la joogo xilligii loo guntan lahaa hawsha dastuurka, maadaama uu sanado badan qabyo ahaa ayna lagama maarmaan tahay in la dhaqaajiyo horeyna loo wado. madaxweynaha oo u jawaabay madaxdii hore oo meel adag iska taagay wax ka beddelka dastuurka ayaa ku dhaliilay sida ay u wajahayaan arrintani, isagoo sheegay in iyaga xaq loogu leeyahay
in ay waajibkooda ka gutaan dastuurka maadaama ay yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda.